dagaalka jihaadka nafta ugu weyni maaha kan dibadda ee waa kan ka dhex socda qalbigaaga. qofka ka adkaada naftiisa wuxuu ka adkaanayaa caajiska, damaca iyo cabsida. maanta waxaan run ahaantii baranaynaa sida loo sameeyo jihaadka nafta si aad run ahaantii u noqoto qof xooggan oo run ahaantii deggan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada goofgara podcast. magacaygu waa ciida. diinta iyo cilmi nafsigu waxay run ahaantii isku raacsan yihiin inay guusha dhabta ay run ahaantii ay ka bilaabato xakamaynta nafta. waxaa loo yaqaano self discipline. jihaadka nafta micnihiisu waa inaad run ahaantii la dagaalanto caajiska, inaad xakamayso rabitaanka xun, inaad doorato waxyaabaha saxda xitaa marka run ahaantii ay adag tahay. haddaba bodkastkan waxaan run ahaantii ku baran doonaa 4 tallaabo oo kaa caawinaya inaad run ahaantii naftaada ka adkaato. haddaba aan ku bilowno tallaabada koowaad: ogaanshaha naftaada, self awareness. jihaadka naftu wuxuu run ahaantii ka bilaabmaa fahanka naftaada. isweydii, maxaa run ahaantii i caajis geliya? maxaa run ahaantii i kiciya enerjigeesaa horumar u sameeyo? goorma ayaan run ahaantii khalad sameeya, khaldama? haddaba cilmi nafsiga casriga run ahaantii wuxuu muujinayaa qofka garanaya run ahaantii dareenkiisa wuxuu run ahaan si fiican u maamulaa ficilkiisa. haddaba haddaan kula wadaago hab fudud: qor caadooyinkaaga, la soco wakhtiyaasha run ahaantii aad wakhtigeeda lumiso, garo. haddaba qofka yaqaana waxyaabaha run ahaantii qofka run ahaantii yaqaana waxyaabaha meelaha run ahaantii oo ku lumi wakhtigiisa wuxuu garan doonaa hadduu si fiican u maamulo in wax bedeli karo. haddaba marka aad naftaada fahanto waa wakhtigii aad run ahaantii dejin lahayd xeerarka adag ee ku horseedaya xakamaynta naftaada. dhis nidaam iyo anshax, self discipline. naftaada run ahaantii wadaniyo marwo nafta run ahaantii lama xakamayn kara hadal oo keliya ee waxaa lagu xakameeyaa nidaam. tusaale ahaan haddaan kula wadaago hurdada run ahaantii wakhti go'an u samee, salaadaada iyo cibaadadaada joogtay oo run ahaantii wakhtiguu tuko, jadwalka shaqada run ahaantii si fiican u nidaamso. haddaba cilmi baaris ayaa sheegtay caadooyinka yar ee ilmi qabataga oo qofku joogteeyo wuxuu run ahaantii ay dhisaan anshaxa run ahaantii adag. anshaxu waa hubka run ahaantii jihaadka nafta. haddaba xakamaynta run ahaantii rabitaanka degdega ah waa muhiim. naftu waxay rabtaa raaxa degdeg ah, nasasho badan, daawasho badan oo uu muhiim u ahayn, iyo run ahaantii wax fudud inay qabato. haddaba waxaa lagu xakamayn karaa qaab ugu fiican: 10 ilbiriqsi ka hor ficilkaaga samee. ka fogow run ahaantii waxyaabaha kugu run ahaantii kicinaya inay caadooyin run ahaantii aad samayso oo la qabsato. haddaba bedel caadooyin xun oo ku bedel run ahaantii caadooyin wanaagsan oo muhiima. cilmi nafsi ahaan qofka run ahaantii dib u dhiga run ahaantii rabitaanka degdega ah ee naftiisa ay doonayso ay ku riixayso wuxuu run ahaantii gaaraa guul weyn oo mustaqbala. haddaba ugu dambayn, jihaadka naftu wuxuu run ahaantii u baahan yahay quwadda ruuxiya. run ahaantii xoojinta iimaaniyaadka waa muhiim mudane. ducadaada, xuskaga alleh, akhrinta qur'aanka. markaa run ahaantii aad xoojiso iimaankaaga qofka run ahaantii waxay ka caawinaysaa maskaxdiisa iyo jirkiisaba inuu run ahaantii toosnaado oo run ahaantii u sahlaysa wuxuu doonayo. jihaadkuna waa safar, ma aha run ahaantii hal maalin. haddaba waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduuceenna. haddii aad rabto inaad run ahaantii naftaada ka adkaato, xusuusno 4 tallaabo. ogaansho run ahaantii waa inaad garata naftaada, ansaxa run ahaantii joogto waa inaad la imataa, xakamaysaa run ahaantii rabitaanka degdega ee nafta ay kuu sheegayso,
ugu dambaynna xoojisa iimaaniyaadkaaga. Haddaba maanta dooro hal caado oo run ahaantii oo ku tababarno naftaada, noloshaada, wakhtigaaga. Haddaba haddii aad saa samayso waxaad dhisi doontaa run ahaantii qof waxaa la dhahaa sababtoo ah waxaa la dhahaa qofka ka adkaada naftiisa waa qofka dhisa run ahaantii noloshiisa qiimo u yeela. Waa mahadsantihiin. Saa iyo nabadgelyo.